haddii danaynta uu qofku danaynayo ay yar tahay ha ku qasban inuu ku daneeyo haddaase ku qasabtay inuu ku daneeyo markaa wuxuu kuu danaynayaa mid raaligelin ah aan qalbiga ka ahaanin ma ahan wax culus inaad saaxiibkaa dartiisa aad u samayso wax weliba balse waxaa culus inaad hesho saaxiibkii aad u samayn lahayd sidaasi qalbiyada u dulqaata in badan hadday isbeddelaan hal mar oo keliya lagama yaaba inay ku soo laabtaan sidoodii hore wanaag ku beddel xumaan kasta dhoolacadee goortii aad murugaysan tahay ku qanacsanow halkaad joogtiy waxaad haysato had iyo jeer cafi cid kasta ogow dadku way isbeddelaan qaladna wuu dhacaa laakiin xasuusnow noloshu waa ay soconaysaa cadaaladdu way yar tahay dulmigana wuu badan yahay balse rajada ah mid weyn allah subxaanahu wa tacaalaana wuu weyn yahay ha ka dhigin farxaddaada inay ku xidhan tahay wax wakhti kooban ah ama waxaad waayi doonto alla raaligelintiisa ka raadsa farxad sababtoo ah isaga keliya ayaa baaqi ahaanaya weligii goortii aad tukanayso ka taxaddar qalbigaaga goortii aad dadka dhex joogto ka taxaddar carabkaaga goortii aad qof kale gurigiisa ku sugan tahay ka taxaddar indhahaaga buug iibiyuhu ma waardiyeeyo buugaagtiisa waayo tuuggu waa jaahil oo waxba ma akhriyo akhristuhuna waa aqoon-yahan oo waxba ma xado adduunkani waa 3 saacadood oo kale ah saacad tagtay saacad joogtay iyo saacad soo socota ogow saacadda ku dhaaftay waa ay tagtay mana soo noqonayso saacadda soo socotana ma ogid inaad gaari doontid laakiin muhiimaddu waa inaad saacadda aad joogtid ka faa'iidaysataa oo aad qaladaadkaagana aad wax badan ka saxdaa markasta aad ka shakaysa ilaa heerka aad gaari karto xasuuso ilaa inta aad soo socotay waxa aad ka soo gudubtay iyo dagaalada qarsooneed naftaada uga soo guulaysatay iyo dhammaan cabsiyadii aad ka soo adkaatay inta aad ku jirta safarkaaga dheer waxaad ogaataa qariirada sacaadada iyo najaaxa inay ku jiraan jeebkaaga ee kuma jiraan sanduuqyada dadka kale wax jeebkaaga ku jira meel kale ha ka raadin insaanka marka uu kula hadlayo si wanaagsan u dhegayso tani waa aadaab waa tarbiye ixtiraam iyo faham ha yeeshee ha rumaysan wax walba uu sheegaya daliil la'aan xigmadahan adigan kuu soo xulay ee xil gaara iska saar